السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما لو تقرأوا ما يقول بعدين كجوبتان ولكن هذه تعايدين هذا المركلة يمسدها بسرعة هذا تركي كرون نيو هير لوشن إن شاء الله صار كيسان فائدة ذا كجفتوال نتيجة ذا نواتاس أنا هنا فهمت نتيجة ذا نواتاس أنا هنا shalay bidaara lahayd iyo shalay salxada dheeraa lahayd iyo shalay kana ahayd ninkeeda soo afjarmay soo marka daas waay aan baashaan ugu bixiyay turki karoon adagoo turkiga tagin madaxa cirbada lagaaga mudmudin zaa'ide 9 saacadood aan ugu soo xirin operation intaas leeg aadan qaadanin gurigaaga joogtid familkaaga la joogtid ilmahaaga la joogtid reerkaaga la joogtid tartiib daawada tartiib u isticmaal okay دمبرول كاغنا داودت كساعد كدب 1 month 2 month وكان هالبل ما شاء الله لو بالكدب أداء كيسيد 6 بيل مركي لقارنا شاكا دوا بيسيب بدشو سو مركا هذا ما شاء الله انت ما يسوى بحدا هذا تنتهي عادي وسوى نخطوها كاي دو شكل كاي جري نك شالي شكل وجريو هكاي فير سابو شالي مدحيق انت سايبا هير عط وقف فيت ما انت نواكا يبو salxii eberka ahay waa kaayabo aday ku taalaa maanta soo marka nin saacada si isdibidhan maanta inta iswareerin lahayd kana aad ku fikir lahayd jasi go'aan qaado go'aankaaga rahan noqdo in aad ka meel dhaliso yuusan naqan mid xiisa ah 2 bari isticmaal 3 bari u guud maalintaa bilaabay ilaa shalay subax xataa waa marsaday laakiin shalay galab jaanis meelin maalintaa bilaabay ilaa shalay si daily waday hal maalin mabaajinin laakiin shalay program iyo waxyaabo kale ay soo galay ilaa xali 4 saac iyo bar magaalada waxyaabo kale ku qabanayeen koob iyo waxa ka dib wareegay oo jaariyad ay sameynayso marka saasaan shalay uga gaari waay maanta waa isticmaal saakay haddana waa isticmaalaya marka baraada oo qof go'aan leh oo qof raba inuu wax qabsado hana qanin mid dhageysto dadka negative-ka ah hana qanin mid dhageysto dadka xaasidka ah hana qanin mid naftiisa xaasidka ah waliga allah marka hore naftaada dhageyso waxay naftaada ku amarta fiiri waxay naftaada ku horseerta fiiri markaas kadib go'aan qaado naftaada waxay kugu amartay go'aan waa ka qaadatay natiijadeedana waa gaaray laakiin haddaad tahay qof go'aan lahayn haddaad tahay qof aan horumarkiisa aqoonin qof aan naftiisa aqoonin weligaa go'aan ma yeelanaysid weligaana horumar ma gaaraysid soo marka do it yourself marka hore naftaada go'aan ka gaar iyada amar waxay rabto markaas inay wanaag u aragto sameey wuxuu naftaada ku horseedin laakiin wax walba wanaag ah oo naftaada u wanaagsan adiga go'aankeeda adiga iska leh waa walaalkayga jecel inuu isbedel sameeyo waa walaasheeda jecel inay isbedel sameyso ama walaasheeda jecel inay ninkeeda isbedel u sameyso marka taas waa iga dardaaran aniga been idin sheegaya 31 cishay maanta ay tahay 31 cishay natiijadeedana waa tahay aniga ma hadlay ingiriiska maxay dhahan result talks resultiga hadlay aniga ma hadlay alxamdulillah hal bil kahor saan ma ahayn markaan kaamirsan usoo fariisto madaxaygan saan uma muuqanin maasha allah meeshaan saan ma ahayn meeshaan saan ay ahayd meeshaan hadda wejiyeygan soo yahay meeshaan ahayd intana waxuma dhaamin waxaad xaadaa ku tiiri tin dhamaatay waxaad xaadaa ku tiiri marka alxamdulillah maanta waa haya qof bini aadana aan ka dhageysanayo wax kalene ma jirto qofka cabsanayo aday ku taalaa qofka oo inuu wax gaaro rabo aday ku taalaa labadiina idinka leeyahay laakiin aniga jooska anaa lahaa go'aankayga waa qaatay maanta natiijada waa haya waana sii wadayaa ilaa madaxayga aan aqiinay bariisamaadka aan lahaa isoo laabto ma sii wadaaya ay ugu qaadato 4 bil ay ugu qaadato 6 bil ay ugu qaadato sanad natiijada madaxayga soo celiya jirto marka insha Allah biidinlah wixii mawduuca meesha soo baxay hadii intii yaro dambaroolka aan ugu talagalay maanta inaan marsiiyo aan dambaroolka ku qabana ana madaxaygan kala caadi isku soo qabsaday ma sha Allah inta xogaa way soo baxday hada soo baxday ma sha Allah soo madoobaanayso
marka sida inta shuk u tahay ee saan soo buuxsantoo kale inta uma soo buuxsamin. sidaas darteed waxaan rabaa marka darmaroolka inuu saacido si u soo buuxsanto, ma garateen? soo marka waa kaaya darmaroolka. Soomaali badan oo iska soo qaylinaysa waa arkay, laakiin wax dana ay ii haayaan ani ma jirto, danteeda anigaa garanayo. wale bidaar iyo ciilkeeda wuu ka baxay ninkii darmarool iyo turki karoon isku helo, taasaa la hubaa, waa xaqiiq ah. taasaa xaqiiq ah, ninkii darmarool iyo turki karoon isku helo inuu bidaar iyo baahideeda ka baxay, taasaa xaqiiq ah, aan cidna la weydiinaynin, ma garata? marka waa idin salaamayaa sidaa u wada dhan tihiin. masha Allah, darmaroolkii way soo dhamaatay istiisi, caagaasu ku jiraa markii la dalbanayo, boorkaasna uu leeyahay. soo marka masha Allah, sprayera ii taalan ku buufinaa hadda. marka ku taala Tamis turki karoon. masha Allah, maasha. markaa marinaysta hataa waa dareemaysaa, ku dhawaad dareemaysaa madax say u rabto. meel u baahan turki karoon inaa marinaysto waa dareemaysaa wallaahi. masaajkeeda ka dareemay. insha Allah garka hataa waa rabaa inuu ku baroobeeyo, miisaysto intuu ku joogaa, intaan way maqan tahay, intaanna waa leeyahay, kana sidoo kale intuu ku joogaa, intaan waa maqan tahay, intaanna waa leeyahay, kana waa leeyahay, caadi waay. markaas naftirkiisa madaxa markii resultigiisa la keeno, markaas kadib la rabaa in loo soo jeesto lagu baroobeeyo garka. hadda waxba ma ka sheegi karo inay garka soo saaraysay in kale. hal maalin miyaa 2 mar camal aan fif ku sii, laakiin ma ku sii wadin oo halaa inuu 2 shaqo igu naqanay, inaan inta mariyo iyo inaan inta mariyo. soo marka hadda muhiimadda tacshii qaliiqiin in la soo celiyo koo waxaa xoogga la saaray. laakiin insha Allah taas markaa ku guuleysto, markaasaa u soo jeesanaa iyadan insha Allah haddii la yiraahdo in garka jaqjaq la siiyo markiis. soo marka maanta qaybtayni 9aad inay tahay jeclahay, maasha Allah. meesha noogu eg, fadlan soo booqo YouTube-kayga insha Allah. subscribe-kaa naga bakhiilin, commentigaaga waa inoo dheerigelin, like-taadana waa niyad dhis. marka insha Allah ay jeclahay farxad iyo caafimaad iyo noolaada kulligiin.